Askariga waa mid ka difaaca bulshada. Askari walba wuxuu u taagan yahay badbaadada dalka iyo dadka. Magaalada Muqdisho waxaa yaala baro kontarool oo aad iyo aad u badan. Barahaas kontarool. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaada degdeg janaal. Maantay degdeg janaal wuxuu idin hayaa askarinimada waxa ay tahay. Horta hore maanta bisha November waa 1 ilaa 3 November waxaan rajaynayaa inuu YouTube-kan uu gaari doono 4,000 oo saacadood iyo waliba inuu heli doono 1,000 subscribe oo shaqada ku bilaabo si wacan. Marka waxaan ku leeyahay haddii calankaas aad qadarisid muuqaalkan subscribe dhac ku sii share garay la kamakadey dhamaysa muuqaalka wuxuu ku anfacayaa adiga aniga iyo askariga Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliya intaba. Askari walba oo jooga magaalada Muqdisho waxaa magaalada Muqdisho maalin walba soo gala baabuur qaraxyo sida waxaa soo gala dad rakaab hubeysan laakiin si loola macaamilo ay ku gudbaan dhibaatooyin badan oo markaas askariga uu isleeyahay fududeyso. 3 shay waxaa laga rabaa askariga. 3 shayna waxaa laga rabaa shacabka. 3 shayna waxaa laga rabaa dowladda. Dowladda waxaa laga rabaa askarta inay u bedesho maalin kasta. Askar cusub ay dhigto barta kontaroolkii askarigii shalay joogay laga qaado askari cusubna la soo dhigo. Sayna isku baranin askariga iyo bulshada. Waa qodob muhiim u ah. Askariga shaqada saaka leh waa inuusan soo qaadan mobile uu qofku la macaamili karo. Waayo askarta waxay wataan fooneeye. Fooneyahana waxaa dhageysanaya ilaa ay centralka. Halkaas macaamiil ma dhex mari karto askariga. Askariga waxaa laga rabaa oo kale dowladda waxaa laga rabaa oo kale inay askariga siiso mushaarkiisa ku filan. 3 qodob oo dowladda laga rabo waa inay ka soo baxdaa dowladda waajibaadkeeda. Askariga waa in loo bedelaa si maalinle ah. Waa in laga qaadaa kontaroolkii maanta uu joogay lana geeyaa kontarool kale cusub ama laga nasiyaa shaqada. Oo askari caaboon oo cusub la keenaa shaqada. Waayo markaan sidaas dhahayo waxaa dhumaya isbarashada asaga iyo dadka dadweynaha. Waxaa dhumaya macaamilka kontaktiga ee mataqaana askariga iyo qofka raba inuu wax loo fududeeyo. Qodobkaas uu dhumayaa. War hala gaarsiiyo codkayga dowladda Soomaaliya. Muuqaalkayga hala gaarsiiyo fadlan inta aqoon leeyahay ayaan rabaa maanta kadib inaan la qaybsado. Askariga muhiim ma ahan inuu haysto mobilkiisa private ah. Muhiim ma ahan askariga intuu 8 saacadood oo shaqada saaran yahay maalintaas in mobilkiisa uu haysto. Taas muhiim ma ahan. Askari kasta wuxuu leeyahay qaanad wax ku rito iyo meel u tirsan yahay xira ah. Askariga ha la soo baaro intuusan soo fuulin gaariga mobilka uu watana ha laga dhigo. Muuqaalka dhameyso oo sii share garay oo like saar haddii uu naga dhaxayo calankaas buluuga ah sii share garay muuqaalkayga fadlan waa muhiim. Askariga waa inuusan ku ekaanin bar kontarool muddo asbuuc ah ama bil ama 2 bilood. Haddii sidaas dhacdo waxaa dhici doona in uu askarigaas yeesho hadduusan yeelan saaxiibkiis uu yeesho macaamiil fara badan oo siyaabo kala duwan wax ugu gudbiyaan. 3 askariga waa inuu dowladda ay siisaa mushaarkiisa. Askariga waa inay dowladda u siisaa mushaar ku filan iyo waqti ku filan oo shaqeeyo. Askariga waxaa laga rabaa haddii u soo laabano askariga waxaa laga rabaa in uu guto waajibaadkii uu dhaartay iyo ciidanimada iyo badbaadada calanka iyo dalka. Askariga waxaa muhiim u ah inuu ilaaliyo sharafta cisada muwaadinka Soomaaliyeed. Ma ahan inuu ku taago qori, ma ahan inuu istaajiyo si qalad ah, ma ahan inuu ka qaato lacag baad ah. Askariga wuxuu qaataa canshuurta shacabka. Askariga waxaa looga baahan yahay inuu cashuurtiisa ku qaato si nidaam ah.
askariga hadduu qof u yimaado uu yidhaahdo waa dedegsanahay waxaan u baahanahay inaad i fudeyso inaan maro wadda hebel waa inaad shakidaa waa maxay degdega ninkaan haysta waa maxay sababta u dooranayo waddadan waa maxay habka u baahan yahay ninkaan inuu aado halkan waa maxay sababta uu lacagta kuu siinayo ha fiirinin $10 oo lagu dhibaateeyo boqolaal Soomaaliya ha fiirin $50 oo lagu dhibaateeyo boqolaal Soomaaliya qaraxa ma yaqaano askariga wala shay ka leexo askariga hooyadiis waaye ka leexo askariga aabihiis waaye ka leexo askarigii waaye ka leexo ma yaqaano ninka naftiis khuraha ah mar walba wuxuu diyaar u yahay inuu dhinto hadduu ku soo taaga lacag waxaa muhiim ah in aad shakido oo aad tiraahdo waa maxay sababta uu lacagta ugu soo taagayo markaas ayaa loo baahan yahay inaad tilaabo sharci ah aad ka qaado oo aad naxirto ama aad bartiisa ku toogato sababtoo ah waxaa yaraa doona qaraxyada iyo dhibaatada mararka qaarkood way dhici karaan qof degdegsan oo lacag ku badbaad leeyahay inay ku dhacaan shilkaas laakiin markay 2 mar ama 3 mar ay ku kadsoomaan way ka tanaasuli doonaan kadib oo sharciga uu ka kasban doonaan askariga ma ahan inuu bulshada cabsiyo askariga Soomaaliyeed ma ahan inuu bulshada cabsiyo waayo haddii aad bulshada cabsiisid oo aad qori ku taagtid oo aad xabad ku ridid kulama saaxiibayaan askarigana wax uma gudbinayaan waliba askariga waa inay uu si saa'ida ugu warqabaa dhalinyarada wadata mootooyinka dhalinyarada wadata baabuurta dhaweeyaha ah dhalinyarada wadata haddaa intaas ka war heshaan oo awood aad saartaan waxaa dhici doonta in aad fahantaan aadna guul badan gaartaan insha allah askariga waxaa waajib ah xogta loo soo gudbiyo inuusan qofkii looga soo gudbiyey uusan la wadaagin ee uu la wadaago taliyihiisa qaybta taliyaha ciidanka si uu u badbaadiyo shacabka intiisa kale askariga waxaa muhiim ah xogtii loo sheegay haddii qofkii looga sheegay uu u sheego isla markii waxaa halkaas ka dhammaan doona in la ogaarsan doono qofkii xogta gudbiyey oo la dili doono askariga waxaa muhiim u ah inuu bulshada qadariyo si uu qadariyaan waxaa ii soo haray shacabka Soomaaliyeed waa kuwa ugu nugul uguna dhibaatada badan ay soo gaarto maantay waad u jeedaan waxaan haystaa qaraxyada dilalka dhaca boobka laakiin dhammaan waad ka warqabtaa waxaad ka warqabtaa qof kasta oo ku cusub xaafadaada waxaad ka warqabtaa qof kasta oo ku cusub guriga deriskaaga ah waxaad ka warqabtaa gurigaaga agtaada waxa la keenayo baabuur aad arki jirin ninaad arki jirin qof aad arki jirin waxyaabaad arki jirin markaa aragto waa inaad isla markiiba aad badbaadisaa qaraxa dhici doona waayo haddii aad aamusto doqonnimadaada waxaa u dhiman doona iyo fulnimadaada boqolaal qof oo Soomaali ah inaad kaligaa dhimato iyo inay 10 qofood oo Soomaali ay badbaado waxa ka fiican inaad kaligaa dhimato taas ayaa shahiid ah taas ayaa geesi ah sidaas awgeed muhiimaddu waxa ay tahay inaad sheegtaa qaraxa gudbaya halku baabuurku marayo ninka guriga kaa ijaartay dadku u imaad tiradooda inta yihiin meeqaa rag ah meeqaa dumar ah inaad gudbisid waxa bac inta jeer ay bac la qaaday ee gurigaaga laga qaaday inaad dowladda wacdo tirahdid bajaaj noocaas ayaa la saaray gaari noocaas ayaa gurigayga imaaday qofka noocaas ayaa guriga ka kiristay ha laga warqabo muhiimaddu waxa ay tahay badbaadada shacabka waxa ogahay 29 Oktoobar inaan guri walba oo Muqdisho ku yaala laga ooyay guri walba oo Muqdisho ku yaala in laga ooyay nooc walba ahaado cid walba u dhasho laakiin waxa ogahay in laga ooyay oo dhaawac iyo dhimasho intaba ii gaartay marka ninka guriga kula degan oo gurigaaga ku dhex diyaarinaya oo gurigaaga ka qaadaya ama guriga deriskaaga ka qaadaya haddii aad ka aamusnaato waa dhibaato waa wacyigelin barnaamijkan waxaan jeclahay inaad u sheergaraysaan
sii badidaan Soomaali gaashiisaan si qof walba waajibaadkiisa uga soo baxo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.